inaan si rasmiya iskaga casilay xilkii gudoomiyenimada xisbiga wadani ee gobolka Awdal. gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani ee gobolka Awdal Cabdikariin Muuse Maal ayaa maanta gabi ahaanba iska casilay xilkii iyo xubinnimadii xisbiga mucaaridka wadani isagoona ka warbixiyay sababaha waqti xaadirkani ku kalifay inuu xilkaasi iska casilo. waxaan jecelahay maanta inaan halkan ka cadeeyo maanta ay taariikhdu tahay 7 Oktoobar 2018 maalin Axada inaan si rasmiya iskaga casilay xilkii gudoomiyenimada xisbiga wadani ee gobolka Awdal. sidoo kale waxaan iska casilay xilkii golaha dhexe ee xisbiga wadani iyo xubinnimadii caadiga ahayd ee xisbiga wadani. waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan waxyaabaha keenay xilligan inaan istiqaalada xisbiga wadani gudbiyo. sidii la socotaan doorashadii dhacday dabayaaqadii kal hore waxa laga xoog roonaaday xisbigii aan wakiilka uga ahaa gobolka Awdal. waxa maanta laga joogaa maalinta sanad wax yar ka dhiman yihiin ama 12 bilood muddo ku dhow maalintii doorashadana laga helay ilaa maanta sanadka ka soo wareegay xisbigaygii wadani wax istiraatiijiyada ama qorshe ama dib u habayna ama diyaar garow doorashada dambe soo socota runtii waan ka arki waayay. xisbigii wadani wuxuu ku rafanayaa komishanka hortiisa markaan arkay qorshaha iyo hanaanka iyo habka xisbiga wadani u socdo inay noqotay cadiyaha ama ku cunay ama ku ciideeyay ayaa waxaan go'aansaday maadaama meeshan wax ka doonanay Soomaaliland ahayd Soomaaliland inay jirtaan waxaan ku noqonaynaa haddii Soomaaliland burburto inay cirana madaxweyne noqon maayo muusana madaxweyne sii ahaan maayo. Soomaaliland dhexdeeda xayndaabka Soomaaliland dhexdeeda inaan isku haysano ay qorshaha iyo mucaaradadu ahayd. mucaaradnimaduna maaha inay noqoto mid wax duminaysa ee waa inay noqotaa mid wax dhisaysa oo qaranka kolba wixii ka qabiya tilmaamaysa. haddii ay mucaaradnimadu noqoto qarandumisnimo runtii waxay taasi keenaysaa in Soomaaliland aynu moogtahay u hanqal taaganay inaan xukunayba ay runtii noqoto wax burburta taana in nabadan uma aha mucaarad iyo muxaafidba. Allahu naxariistay Ibrahim Gadla wuxuu yiri waxaad shalay ta mudatiyo mahadhada xusuusnow halkii qorigu ka muday mar labaad lugtaada iyo cagtu yaanay kula marin meeshaad mar ku jabto 10 iyo cibra laga qaataa horena waa looga sii socdaa. haddii laakiin halkaad ku kufteed ka kici kari weydo inaad kuftaay ceeb maaha waxa se ceeba iyo doqonnimo halkaad ku kuftay inaad ka kici kari weydo. markaan arkay xisbiga wadani in weli fadhiyo halkii uu ku kufay ayaa waxaan go'aansaday runtii inaan runtii masiirka iyo aayaha ummadda aan wakiilka uga ahaa xisbiga wadani ee gobolka Awdal. sidoo kale gudoomiye Cabdikariin Muuse Maal ayaa waxa uu sheegay inuu hordhac u yahay siyaasiyiin tiro badan oo ka soo bixi doona xisbiga mucaaridka wadani. aan meeshaas dhaantay runtii ku jiheeyo waxaana sahan iyo ceelaliyo wahay raxan siyaasiyiina iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani oo iyaguna maalmaha safooda inagu soo haya insha Allah taala iska casili doona xisbiga. waxaanu ka tashan doonaa runtii halkii ay ku jirto aayaha danta iyo danta dalka iyo dadkuba. haddii ilaahay qadaro waxaan tala kula noqon doonaa taageerayaasheeda gobolka waxaan tala kula noqon doonaa dheergaradka gobolka waxaanu tala kula noqon doonaa mudakarka Soomaaliland halkii danta ay ku jirto qaranku ayaanu insha Allah taala maalmaha fooda inagu soo haya aanu u wareegi doonaa. waxa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan xisbiga tacabka inta laga galiyay muddo 7 sano ama 6 sano lagu soo tabcayay in ayron looga dhaqaaqo. kulay Soomaalidu waxay tiraahdaa nin reer weyn iyo nagna ay ka umulsay midna sidoo xoog yihiin ma sheegan wax badan baanu ognahay. nin faras dabadii ka degina meel kale ka degu waayay iyadna mahmaa kala ahayd marka kulay waxa kalifay bay qabtaa. waxaan u aragnay halkaan shalay ku kufnay inaan berrina ku dano inaan halkii uu lagu sii wado jarkiina laga tuurayo taasi runtii marka waxay qof damiirli wax uu sii joogi kara maaha. waxaan markaa ugu baaqaynaa dhammaan cid kastoo naga arrin qaadanaysay taageerayaasheeda siyaasiyiinta kale aan isku aragtidanahay ilaa imika xisbiga iga dambeyn doonana in insha Allah halka sahanku runtii uu salka dhigo aanu shaacin doono siyaasadda